ayo gudoomiyaha gobolka lixaad kale sida wasaaradda arrimaha gudaha sida hay'adda TIS TV-ga Jubbaland aad baan arrinta ayadaan u soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay arrinta ayada waxaan rabaa inaan gudoomiyaha ku soo dhaweeyo annagoo markaanu ka dambe wixii sheeka iyo wixii akhbaaraad kala qaadan doono hadda ay tahay waxaana soo dhaweynta waftiga inoo yimid gudoomiye ku soo dhawaaw wasaawa jimciin gudoomiyaha degmada taliyaasha ciidamada Jubbaland ee kala duwan qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiinta kale ee degmada Afmadow ciidanka AMISOM KDF saraakiisha iyo cuqaashiga waxgaradka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan idin soo gudbinayaa salaan diiran oon idinka sidno madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan oo saaka safar ku yimid oo safarkii shirkii Istanbul iyo wasiirka arrimaha gudaha mudane Darwish iyo dhammaan mas'uuliyiinta iyo shacabka reer Jubbaland ee dowladda Jubbaland salaan kadib waxaan rabaa ujeedka safarka iyaga inaan si kooban uga hadalno annagoo idinla joogi doono muddo ilaa 3 casho ah haddii alla yiraah mashruuc waxaan idin wadnaa safarkaygu ku saabsan yahay mashruuc horumarineed oo runtii ka duwan mashaariicdii hore ee laga hirgelin jiray 20kii sano ee burburka ku jiray Soomaaliya mashruuc ka duwan oo haddii Ilaahay ku samagol yahay aan isleenahay waxtar buu u yeelan doonaa Jubbaland gaar ahaan degmada Afmadow aan isleenahay waxtar buu u yeelan doonaa mashruucan oo magaciisa la yiraahdo ama programkan oo magaciisa la yiraahdo xasalinta marxaladaha kala guurka program ah weeye waxaa naga caawinaya oo caawinteeda iyo garab istaaggeeda iska leh hay'adan la yiraahdo TIS Plus USAID ama oo ka soo jeeda waddanka Mareykanka runtii waxaan leenahay aad bay ugu mahadsan yihiin marxaladda adag iyo garab istaagga iyo waliba xilli lagu jiro marxalad adag ay garab istaageen waan ku amaanaynaa sidoo kale shalay ma jirin program sidan oo kale ah inuu ka fulo Afmadow iyo dhammaan Soomaaliya ama Jubbalandba sababta uu ku yimidna waxa weeyaan waa amniga ka jira iyo isku tashiga dhinac walba ah ayuu ku yimid baan dhihi karaa waxaan kaloo dhihi karaa waa mashruuc ka duwan kuwii hore markaan leeyahay awal hore mashaariicda la keenayo Jubbaland ama Soomaaliya oo dhanba waxay ahaayeen kuwa kor looga yimaada oo aan dadka ka imanin laakiin programkani waa program aan rabno in uu ka yimaado dadka baahida ayagu ay qabaan inay sheegaan ceel baan u baahannahay isbitaal baan u baahannahay haddii Ilaahay ku samagol yahay waxay u baahan yihiin priority-ga ayaga ayaa sheegi doona mashruucan ama TIS Plus waxaa ka horreyn jiray mashruuc kale oo la yiraahdo TIS kaasoo mashaariic yar ka sameeyay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose ayay ka sameeyeen ama Gedo laakiin mashruucan hadda la yiraahdo TIS Plus waa mashruucii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka soo dega waa mashruuc ay nasiib u yeelatay Jubbaland waa mashruuc ay nasiib u yeelatay in lagu bilaabo Afmadow Soomaaliya oo dhan magaaladii ugu horreysay ee lagu bilaabo waa Afmadow wuuna socon doonaa oo Jubbaland oo dhan inuu ka hirgalo ayaanu jecelahay badhaadh uu ka hirgeli doonaa baar dheer uu ka hirgeli doonaa wuxuu ka hirgeli doonaa ceel waaq oo kale meelo badan buu ka hirgeli doonaa haddii alla idmo